maxaa ugu muhiimsan ee qofka dhalinyarada ah ee shaqo raba inuu helo looga baahan yahay ama maxay tahay inuu diyaarsado markuu waxa diyaarsadana maxaa ku xiga bal asaas oo kale hadda inoogu sii wado marka ardayda inay had iyo jeer quality-ga waxbarashada aad iyo aad inta jaamacadda ku jiraan ay aad uga shaqeeyaan oo improve gareeyaan taas waa number 1 talabaad waxa loo baahan yahay waa skillska waxa laga yaabaa inaan jaamacadda ku baranin skillska dibadda aad u doonanaysa computer literacy for example oo kale inaad computerka si fiican u barataan waa muhiim weeyaan waxa jira skills kale oo fara badan oo kale looga baahan yahay shaqada waxa ka mid ah presentation skills inaad dadka hortooda intaad soo istaagto aad jeedin karto sharxi karto ka iibin karto idea-da dadka aad ka iibin karto waxa ka mid ah public speaking oo kale taalifkeedu fiican yahay waxa ka mid ah communication skills qofku inuu ku fiican yahay luqadda ingiriiska uu ku fiican yahay maadaama wixii luqadii lagu shaqeynaya tahay inuu qoraalkiina ku wanaagsan yahay hadalkiina ku wanaagsan yahay muxuu ahaa uu soo jeedin karo hadal uu soo jeedin karo waa muhiim marka labadaasi waa labada asaaska oo ah inay dhalinyartu markay jaamacadaha ka soo baxaan ay shaqo helaan intaa waxa soo raaca waa job hunting skills ardayga jaamacadii ka soo baxay skillskii kalena uu leeyahay si fiican wax uu soo bartay marka at this very moment wuxuu u baahan yahay inuu barto xirfadii shaqada lagu codsanay sida job searching loo sameeyo shaqada loo raadiyo ama ha noqoto website-yada laga raadiyo ama journaalada ka soo akhriyo tusaale ahaan oo kale Somali jobs oo kale inaad gasho aad eegto shaqada wixii markaa background-kaaga aad leedahay oo buuxin kartaa aad soo degto aad akhrido si fiican aad u fahanto kadibna waxa imanaya CV writing CV-ga qaab loo qoro leeyahay update the most updated CV writing kaas aad isticmaalaysaan ugu dambeeyay waxa kaloo loo baahan yahay motivation letter maxaad shaqadan u codsanaysaa inaad qori taqaano oo garanayso si walibana fari kale aad qori karto taa markaad hesho waxa skillska kale u baahan tahay wuxuu noqonayaa kaba soo qaad si fiican baad CV-ga u qoratay motivation letterkiina codsigiina waa si fiican baad u qoratay and you have been accepted shortlist ka lagu soo diray waxa lagu yeeray written test imtixaana haddana imtixaanka strategy-ga loo qaado inaad sii ogaato taasina waa muhiim weeyaan waxa kaloo iyadna muhiim interview ba laga qaadaya interview-gana dee sidaas ku difaaci lahayd su'aalaha lagu weydiinayo waa inaad sii waraysataa dadka kaaga weerarsan sii weydiisaa su'aalaha common-ka in general is weydiiyo iyo kuwa specific-a kuwa specific-na inta badan waxay ka imanayaan waa terms of reference-ka waa wixii la soo xaysiiyay waxa ku qoran waa job description-ka taasay ku qoranto xaggaas gaaraysaa wixii specific loo baahan yahay marka hadda waa inaad isdifaaci karto interview-gii luqadaaduna dee waa inay fiicantood ka jawaabi karto su'aalaha lagu weydiiyo wixii intaa ka dambeeya waxa soo raaca wax la yidhahdo networking oo imika adduunyadii wixii hore way ka gudubtay oo imika haddii aad jaamacadda ugu qaalisan adduunka haddaad ka soo qalin jabisay Harvard University ama haddaad intelligent tahay wax kaloo ka muhiimsan baa jira boqolkiiba 90 waxa ka muhiimsan the number of professional networks you have network ayaa ka muhiimsan dadka aad taqaaneed ku xidhan tahay tusaale ahaan haddaad ku xidhan tahay ganacsatada oo dhan haddaad ganacsiga oo dhan ku fiican ama successfulka haddaad ku xidhan tahay waxa laga yaabaa inaad aad heli karto fursad aad ganacsi ku bilowdo oo ay ku tilmaamaan ama lacagba ku amaahiyaan haddii network professional aad ku xidhan tahay dadkan hay'adaha ka shaqeeya ama UN ha noqoto ama international NGOs-ka ha noqoto haddaad ku xidhan tahay waxa laga yaabaa inaad fursad u heli karto inaad hay'adihii laftirkooda dhex gasho ama adoo ku bilaabaya voluntary ama waxyaabo yar oo ay kugu tijaabiyaan assignment-yada kugu tijaabiyaan marka network-guna waa very important waxaad ka warantaa haddii qofku shaqadii waayo sidee buu dhaqmayaa I don't recommend inuu muxuu ahaa qofku shir jiraad qabta ama media uu ka hadlo inta badan waa distractive weeyaan waxay ka lumiso mooyaan xog kuma soo kordhinayso oo dadkii ka horeeyay xitaa dad aragto dadka media inta badan ka qayliya ka hadla ma fiicna isna good idea waxa fiican qofku inuu he has to reflect mar alla marka uu arko inaan wixii ku soo bixin inuu su'aal isweydiiyo fadhiisto wixii isaga ka qaldamay marka koowaad inuu raadiyo waxa laga yaabaa marka qaarkood adiga inay qaladku ka yimiday oo waxyaabaha qaarkood aad ka gaabisay marka haddii aad ka qaylido qalad bin qorso marka hore inuu isagu isxisaabiyo ya evaluation uu sameeyo dabeetana uu soo saaro meesha wax ka qaldameen improvement uu ku sameeyo taas waa number 1 haddii jiraan qaabkan process-kan recruitment haddii wax ka qaldan yihiin inuu qofku samro oo barto strategy-ga qaabkii dee qofkan kale shaqada lagu siiyay oo barto isaga laftirkiisuna process-ka dee qofkaasi uu maray oo maro dee dadkii barto inkastoo aanay wanaagsanayn oo dee wixii ay ka fiican tahay wax walba inay fair noqdaan si cadaalad ay u dhacaan inay ka fiican tahay laakiin anigu waxaan u malaynayaa inay sidaa ku wanaagsanto media laga hadal waa setbacks fara badan bay leedahay aad baad mahadsan tahay su-aasha kalen ku weydiinaya dadka qaar baa iyagu waxay jecel yihiin inay shaqo ay leeyihiin abuurtaan oo dad baa fikrado badan haya dadka iyagu process noocay marayaan ama heerar nooceeya
looga baahan yahay si ay u samaystaan وسؤال أدو نحسن أنا وأنا ميلها جعل هيدا تفيني هذه الشيء أي فهمان ماشي الدنيا دو هرمر كأي كسر ميسا أنت بدن وحلا بورك وانتربرنورشيب كرياتيفيتي ويان سمعت كلام عادة جامعة أنتوا كتير إنه برتاح حرفتها انتربرنورشيب حوجة وسعره by the time وجامعة كبحنا ولي ما ده business plan business idea سوقا هاي هيدانا إن بورا ما يهرجيسات سمعنا أنت نودح كله يا ماركت كات ستا ودح مريسا وايو حلا بورك قف إن حلا بورك لو حلقوا يقعنا و understanding the market and recognizing opportunity وقف سوقي سدو شقينيو ganacsigii fahamsan isla markaana fursad ka soo dhex saaray iyada dadku ay ka shaqeystaan aad saddex baa u kala qaybsato aad tiraahdo small business medium enterprise kaba dhigba maxay haydaanay shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil iyo maxay haydaanay hadii la ku roon yahay iyo Telesom iyo kuwa ka dhigo small business kana dukaamada yar waxa ka medium ka dhigo haddaad sidaa u fahantood dhex gasho waxaad ogaan doontaa fursadaha ka bannaan baad ogaan doontaa fursadaha haddaad ogaatana waxaad la iman kartaa business idea wanaagsan oo ka maqan meesha taa markaad la timaadana waxaad u baahnaanaysaa sources of capital fund waa fikraddii ganacsi baad haystaa laakiin lacagtii aad ku maalgelin lahayd xaggeed ka keenaysaa taa laftirkeedana inaad barato dadkii dhex gasho bangiyada muraabaxada kuwa wax deyminaya kuwa kale micro credit finance-ka in guushu inta badan ay ku jirto maxay haydaanay qofku inuu isagu wax samaysto halabuur la yimaado way ganacsi haddaad la timaado hadhow dad kale aad sii shaqaalaysiinaysaa uu koraya ganacsigaagu profit fara badan iyo faa'iido badan ayaad samaynaysaa instead aad intaad shaqo ka raadinaysa waqti badan baa kaaga lumaya kow haddaad heshaan hadda wax badan samayn kari maysid dhalinyaradu waxay aad isku weydiinayaan lacag hadda badigoodu ma hayaan lacag badan sida lagu helayaana waxay u baahan tahay dee waqti qaar heli karaana way jiraan ma waxa muhiim qofku inuu fikradda hayo fikrada ganacsiyo wanaagsan u hayo mise waxa muhiim qofku inuu lacag hayo markuu lacag helo uu wixii fikrada uu ka fikiri karo